Madagascar waa dal jasiiradeed dhaca koonfurta qaaradda Afrika ama bariga dalka Mozambique oo ah bartamaha Badweynta Hindiya. Waa dal jasiiradeedka labaad ee ugu weyn dunida, baaxad ahaan waa dalka 49aad ee ugu baaxadda weyn caalamka. Sidoo kale, waa dalka ugu xeebta dheer guud ahaan qaaradda Afrika. Dalkan waxaa ku nool dad lagu qiyaaso 27 milyan oo qof. 95% dadkiisu waa dad ka soo haajiray Asia qarniyo ka hor. Madagascar waxaa la tilmaamaa inay tahay meelihii ugu dambeeyay dunida ee aadamuhu dego. Bilowgii taariikhda miilaadiyada, qowmiyado ka soo haajiray dalka maanta loo yaqaan Indonesia ayaa soo degay jasiiradan. Maanta waxaa ku nool dalka 18 qowmiyadood oo ah dad ka soo haajiray Indonesia iyo kuwa Carab iyo Afrikaan isku milmo ah iyo dadyow kale. Dalkani waa mid ka duwan wadamada kale deegaan ahaan, waxayna taariikhyahanadu xusaan in jasiiradda Madagascar ay 88 sano ka hor ka soo go'day dhulka loo yaqaan maanta qaarad hooseedka Hindiya, Indian Subcontinental. Waa dal dhirta laga helaa iyo xayawaanka ku nool 90% aan meel kale oo dunida ah laga helin. Waa dalka kaliya ee Afrika ah ee dad dega ama majority ka ah aysan ahayn Carab iyo Afrikada Madow, balse ay yihiin Eeshiyada Koonfur Bari. Antananarivo waa caasimadda dalka, waana magaalada ugu weyn, waxaana ku nool ilaa 3 milyan oo qof. Dadka reer Madagascar waa bulsho 74% wax qora waxna akhriya. Waa dad beeraley u badan oo ku badan dhulka buuraha ah. Qowmiyadda Marina ayaa ah tan ugu dadka badan dalka oo 5 milyan oo qof gaarta. Nidaam ahaan dalku waa jamhuuriyad madaxweynuhu awood ugu sareysa leeyahay oo la soo doorto. Dhanka heerka horumarka aadamaha waa mid hooseeya, balse markii Afrika loo eego dalalka hore ayuu kaga jira. Dhaqaalahoodu waa mid dhexe markii loo eego Afrika, oo waxay 85% ku dhawaad ay ka helaan dhaqaalaha beerashada iyo kalluumeysiga. Agabka ugu weyn ee ay dibadda u dhoofiyaan waa faniiliyada. Magaca Madagascar waxaa markii ugu horeysay la bixiyay qarnigii 13aad oo waxaa adeegsaday dhulmareenkii reer Yurub ee Marco Polo oo ahaa qofkii ugu horeeyay ee Yurubyaan ah ee cagta dhiga jasiiraddaas. Marco Polo wuxuu ku qalday jasiiraddaas markii uu tagay magaalada Muqdisho oo hore u maray ayaa ku magacaabay Madagascar asigoo mooday inay tahay Muqdisho meesha uu joogo, oo waxa uu kari waayay magaca Muqdisho ee uu yaqaanay.